إلهي ما هذه شغل إسكالة سفر دير بان يعني قالي وحن قياستا سانو من اللحية طبعاً بيش سدحات بان كسماية كبح قياس سانو مالين أيو وريق دير بان سوق قالي مركور الشقان كيو آدي نيروبي بان تغي وحي برنامجون ماشا u tagnaan rakaloon wada soconay si wanaagsan baa noogu qabsoomeen markii dambena waxaan ka wareegay gaarsi halkaas ka wareegay Doobley baan waxaan ka soo galay xagga xuduudda Kenya nabad buu dalku ahaa Ilaahay baa mahad iskale roobab way u bilowdeen aad baa loo ladnaa Doobley baan tagay Doobley madaxdeedii iyo waxbarashadeedii baan la kulannay جو wanaagsan bay ku jirtay madaxdii Doobley si fiican bay noo soo dhaweysay macallimiintii iyo iskuuladii iyo oo la jeedadana ugu waxay ahayd waxbarashada iskuulada siiba iskuulada si fiican baan u marnay si fiican baan guddigii iskuulada iyo waxaan la kulannay macallimiintii iyo guddiga macallimiinta intuba si fiican bay noogu dhamaatay amisoomtaan tagay amisoomtaan waxaan la kulmay sector commandaha jooga meeshaas kaasa diyaaradda siiyay diyaaraddan waxaan ku tagnay hoosungow baan haddana intii annaga naga khuseysay magaalada jawigeeda odayaasha waan la kulannay waxbarashadana waan la kulannay iskuullada waan tagnay macallimiintiina waan la kulannay jawigana si fiican baan u ogaanay hoosungow marka si wanaagsan bay ayadana noogu dhamaatay wixii mulaaxado oo ka soo qornayna waa wadaan meeshadan ku sheegi doona laakiin jawi ahaan way fiicnayd 2 saacadood 3 saacadood amal baan hoosungow joognay wayna qaaday diyaaradii waxayna geysay qooqaani baan ayadana xerada amisoomta yaan ku degnay halkii baan laga kiciyay magaalada qooqaani baan tagnay qooqaani baan guddigeedii iyo maamulkeedii iyo waxaan la kulannay macallimiintii iyo waxbarashadii meesha ka jirta meel isbitaal iyo waxbarashada loogu talagalay oo dhul weyn oo la baneeyayna waan tagnay si fiican baan xogta u ogaanay ama xogta waxbarashada ha noqoto ama xogta guud ee ha noqoto magaalada qooqaani iyo xaaladda ku sugnayd ayadana si fiican baan u ogaanay muddo adigana 2 saacadood iyo badh meelahaasaan joognay waan ka tagnay afmadow baan tagnay afmadow baan Ilaahay nabad ugu geeyay haddana isla maalinkii afmadow waxaan baranay 2 habeen afmadow waxbarasho fiican baa ka jirta sida qooqaani waxbarashadeedu aad bay u liidatay meeshadan kaga hadli doona hadii Ilaahay idmo afmadow waxbarasho fiican baa ka jirtay iskuulo wanaagsan baa ku yaalay macallimiintii iyo maamulka iyo odayaasha si fiican bay u wada shaqeynayeen intuba waan la kulannay waan kormeernay ayadana waan la kulannay aad baan xogta magaalada u ogaanay annagu yoolka annagu waxbarashada kaliya ma ahayn magaalo kasta jawigeeda iyo xaaladda ku sugan tahay